ساتا باب في عنتا مقعاه حسن إيوه رساتا dhiirigelinta iyo ka warqabka kuwa naftooda inoo huraya jadwal howleedka shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta loo gaar yeelay ka warqabka iyo dhiirigelinta halyeeyada ciidamada qaranka iyo kuwa xaquudirirka macawisley ee dhaawacyada ku ah isla markaana ku jira qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka ciidanka xoogga dalka iyo isbitaalka kalkaal ee caasimadda Muqdisho الله كعافية قالوا داوين إلى إذكس أنت بالقبة كرو دولة دكوا قبة كرتوا الوقوع قبنا قدرت ربي لقى مهرتي كرو لكن وحي كسهر الوقوع قبنا تنكلا وحقت كل ما تقول وعن تأرى كل ما تنا قضية صحوة ضدك الدين تدافع عيسى مركوان عاف ماذا وان دولة دون كداوين إن شاء الله يابها معنا عاف ماد بال إن شاء الله isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qalab ahaan iyo dhismo ahaanba dib u casriyeyn xooggan ay dawladda Soomaaliya ku sameysay iyada oo ka duuleysa in baxnaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo halyeeyada kale ee difaacaya dalkeena mas'uuliyad gaar ah la iska saaro ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu horeyn ka booqday qaybaha gargaarka degdega ah iyo qaybka baxnaanada gaarka ah ICU halkaasi oo ay ku jiraan bukaanno ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo kuwa macawisley kuwaasi oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada qaranka iyo macawisleyba ay kula galeen gobolada jamhuuriyadda gaar ahaan gobolka Hiiraan gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo uu ka socdo dagaal adag oo lagu ciribtirayo kooxaha nabadiidka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu mid u dul istaagay sariiraha ay jiifaan halyeeyada ciidamada qaranka iyo kuwa macawisley ee dhaawacyada ah isagoo oo mid ugu xog wareystay xaaladooda caafimaad gacanta waa sidee gacanta iyo caloosha kulli fir leh faraha waa fiican yihiin caloosha madax soo gaarin uu fiican yahay madaxweynuhu waxa uu ciidamada u sheegay in dawladda iyo dadka Soomaaliyeeduba ay ku baraarugsan yihiin abaalka taariikhiga ah ee ay u galeen isagoo oo tilmaamay in dawladda ay ka go'an tahay inay mas'uuliyad gaar ah iska saarto baxnaanadooda caafimaad iyada oo loo ballan qaaday ciidamada in wax looga qaban doono gudaha dalkooda si bilaash ah iyo haddii loo baahdo in loo qaado baxnaano caafimaad oo dalka dibaddiisa ah dalkaaga diintaada isqaabatay ilaahay waa ku saacida insha Allah anagu waa ku garab taaganahay madaxweynaha jamhuuriyaddu muddadii uu ku guulay jiray kormeerkiisa isbitaalada ay ku jiraan halyeeyada ciidamada qaranka iyo kuwa macawisley waxa uu u kurgalay hanaanka shaqo ee isbitaalada si gaar ah isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu mid u booqday qaybaha uu ka kooban yahay isaga oo ka dhageystay warbixin taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hoggaanka caafimaadka iyo agaasinka isbitaalkaba warbixino ku saabsan horumarada isbitaalku uu gaaray sidoo kale waxa ay saraakiisha iyo taliyaashu la wadaageen madaxweynaha jamhuuriyadda baahiyaha adeeg ee isbitaalku wali uu u baahan yahay madaxweynaha ayaana ballan qaaday in dawladdu ay mas'uuliyad gaar ah iska saari doonto casriyeynta hanaanka shaqo iyo qalabka isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si looga maarmo in halyeeyada nafta noo huraya ay waayaan goobo u qalma oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibo